naxariisay saddex caruura oo Walaalo ayaa geeriyooday kadib markii gaadhi uu ku jiray koonfurta magaalada Hargeysa agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada waxaana meydka caruurtaasi la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa aabaha dhalay caruurtan Cabdilaahi Salabaan ayaa telefishinka Home Cable waxa uu ga waramay qaabka uu shilkaasi u dhacay iyo waliba da'da caruurtaasi walaal anigu meesha ma joogin saddex caruur gurigan kaga tagay iyagoo nabad qaba dabeed anigoo suuqa in baa lagu yiri saddexdii caruur haba way dhinteen dhakhtarkan ugu yimid markaa mid baa nafta ku soo gaadhay kolka meel ay ku jireen marka alaanka ma hubo laakiin sidaa masalaha ahayd baa lagu yiri marka caruurtu way mise jiray caruurta taguun ilaa jir bay heedo inaan bay midna waxa ahaa 15 jir midna 13 jir baa xagee ka yimaadeen caruurta halkan bay joogtay magaalada marxaamado kale ay maka fasaxay maanta ahaayeen marka inana gurigay joogtay ugu shaqayn jirtay ma garanaysa labada kalena waxba dhigan jireen taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland gaashaan la sara Faysal Xiis Cilmi oo la xiriiray ayaa waxa uu sheegay in gaadhiga caruurtan jiray uu ku socday xawaare aad u sareeya isla markaasna ay gacanta ku hayaan ninkii gaadhigaasi waday hooyada dhashay caruurtan ayaa iyana sida la sheegay dhawaan geeriyootay Xasan Galayd telefishinka Home Cable Hargeysa